shaqo kasta oo loo qabanaya waxay u baahan tahay in hareeraha laga joogsado sidaasi daraaddeed ciidanka ilaalada cashuuraha ayaa kaalintooda ka qaata ilaalinta cashuuraha iyo habsami socodka shaqada wasaaradda maaliyadda taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha Kolonel Cismaan ayaa ka hadlay shaqada ciidankiisa hawsha qaranka loo haynaa waa hawsha ugu muhiimsan waa ilaalinta cashuuraha qaybta ilaalinta cashuuraha dad maqasho waa dabagalka dakhliga ilaalinta meel kastoo joogan cashuuraha bariga la shaqeynta iyo kastamada intaba la shaqeyntooda dhammaan gobolada Soomaaliyeed oo dhan bay ciidanka ilaalinta cashuuraha joogan waana kuwa wax soo saarka dakhliga ee dabagala soo qabashada kontrabanka waxa kale ku darsadaan muqaddaraadka waxyaabaha muhiimka oo dhan ama dalka khalkhal ku ridi kara waa kuwa ciidanka ugu muhiimsan ee qaban kara waxaan had iyo jeer joogteynaa ilaalinta cashuuraha dabagalka ama soo qabashada gaadiidka kontrabanka diida cashuur diidka waxaan ku raadayay xuduudaha ka soo talaabaya ee kontraband dalka ku soo galaya ka ganacsatada ay ama cashuur diidaya isagoo lagu leeyahay mataal macaashka lagu leeyahay ama cashuurta GTS ka lagu leeyahay ama customer haato wax kasta oo meel kasta cashuur ka socotoba waxa ciidanka ilaalinta cashuuraha ayaa ka shaqeeya waana doorka ugu muhiimsan ay dawladda ugu jiraan waa wax qabadka cashuuraha ilaalinta cashuuraha kontrabanka cashuuraha ka soo galaya xuduudaha markaan qabano waxaan saaraa cashuur 100% aan ganaaxna iyaan qabanaa ayaa laga shubaa 100% ganaaxna waa lagu dhiftaa si aanu qofka hadeed culayska u daneeno meel kale ugu beydin oo kastamada u soo maro mar labaad hadii lagu qabto maxkamadda sharciga la horgeynaya marka hore digniin la isku daraya iyo ganaaxa iyo cashuur ka shubista la isku daraya inaanu ku noqon mar labaad haduu ku noqdo waxaan geynaa wadada sharciga aanu marnaa maxkamadda geynaa